هذا jeer go'aanada maxkamadda cadaaladdu way raagaan curfi ahaan oo maartay muddo badan ka bacdi ba ay go'aanada la soo saaraa laakiin go'aanku wuxuu noqon karayaa aan anigu aaminsanahay dooda Kenya iyo dooda Soomaaliya in maxkamaddu ay u go'aamin doonto go'aanku xilligu doonaba intuu kasta waqti badan qaato in haddana go'aanku noqon doono dhinaca dawladda Soomaaliya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناسان داوديال كنا سو دواada barnaamijkan oo sida aad arkaysaanba dhinacayga bidix u fadhiyo Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo hore u ahaa garyaqaan isla markaana hadda diyaariya sharciga caalamiga ah iyo badaha waliba maanta waxaan ka wareysanayaa Mubaarak oo barnaamijkan inoogu martiya arinta maalmaha bataagneyd ee la xiriidha kiiska dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo waliba Kenya. haddaba Kenya sida ay wararkii ugu dambeeyay ku soo baxayeenba ama la socoteenba waxa ay sheegtay inaysan ka qayb gali doonin dhageysiga dacwadda badda ee taala maxkamadda caalamiga ee ICJ. ugu horeynse waxaan weydiinayaa bal waxay ka dhigan tahay go'aanka ay qaadatay dawladda Kenya. بسم الله الرحمن الرحيم أحمد آدي أدبان كاغا مهد فرصة قالقات سيسي هدان سؤال شهادة كتشوابو قرار كسو بحي حفيزك حراليها قودة دالك كينيا شلو حكو شاقي لبا صوابود إني أوغا بحين لغيسيغا كقيب قالك دعوة بدا هورتا واحد مهمة اللي فهمو كينيا دعوة كمي تناسلين وكمي بحين لكن waxay ka cudur daaratay inay qayb gasho hearingka ama dhageysiga bilaabmay maanta oo taariikhdu tahay 16 March oo soconaya ilaa 24 March waxayna ku soo weysay laba arrimood oo waaweyn oo mid ka mid ah tahay in aanay qareenadeedu u diyaar garoobin dhageysiga ama maartay ka qaybgalka dacwadan oo ay adag tahay in lagu soo bandhigo qaab virtual live stream iyo talabaad ah inuu dhaqaaluhu saameeyay xilliga COVID-19 ka wadanka Kenya taasna uu saamaxay inay ka qayb gasho ama sidii la rabay aan ugu diyaar garoobin dacwadda. Su'aasha muhiimka marka waxay tahay maxay ka dhigan tahay maxkamadda cadaaladda dunida waxay wax ka bedel ku sameysay xeerkayga ama procedure-kayga gaarka ah dacwadaha ku gasho qodobada 9 iyo 4 waxaana maxkamaddu xilligii bandamiga ay wax ka bedelka u sameysay markii hore wax waajib ah in dhinacyadu ka soo qayb galaan dhageysiga dacwadda laakiin markii dunida bandamigu ka dhacay maxkamaddu waxay wax ka bedel ku sameysay xeerkayga waxaana waajibisay in dacwadaha qaar lagu gali karo dhamaantood qaab video ama is arag maqal ama qaybtood marka waxba kama bedelayso hanaankii geed socodka dacwadda sida laga warqabana 3 jeer hore dacwadda dib u dhacday 3 jeerna wax dib loogu dhigay dawladda Kenya laakiin waxaan filayaa markii dib loogu dhigayno dacwaddu sida maanta ay u bilaabantay ay u soconaysaa maxkamaddu kama tagayso oo way tixgelinaysaa submissionskii iyo qoraaladii hore ee dawladda Kenya ka yaalay maxkamadda laakiin sidoo qabo article 53 ee xeerka maxkamadda cadliga dunidu waxa dhinaca Soomaaliya ay dalban karayaan in iyaga si favorkooda ku jira loogu xukumo maadaama dhinacii kale ee dacweysanaha uu ku guul daraystay inuu cadeysto ama uu ka soo hormuuqdo maxkamadda hore ma dhacday in maxkamadda laga soo hormuuqan waayo ama uu dal iman waayo dhageysiga dacwadda haaway dhacday dalalka China iyo Philippines markuu taagnaa murankii South China Sea China iyo isku haysteen Philippines China wuxuu toos u diiday inuu horimaado maxkamadda cadaaladda dunida kiiskana wax loo xukumay Philippines baa loo xukumay xaga sababta labaad ay Kenya ku sababaysay qoraalka xirraaliyaha ka soo baxay ee ah inuu dhaqaalaha Kenya saameeyay bandamigu waxaan aaminsanahay in aanay ahayn dood macquul ah oo ay maxkamaddu ku joojin karto ama ay dib ugu dhigi karto dhageysiga dacwadan muddada badan soo socotay sababtoo Kenya quraamo saameyn dhaqaalaheega coronavirus laakiin dunida oo dhan ay saameeyay ay Soomaaliya ka mid tahay oo waliba dal faqiira saboola amni darro badan ka jirto taag daran haddana commitment ku ah ka go'an tahay inuu galo ama ka qayb qaado inuu difaacdo badiisa. muxuu noqon karaa Mubaarak go'aanka soo baxaya هذا jeer go'aanada maxkamadda cadaaladdu way raagaan curfi ahaan oo maartay muddo badan ka bacdi ba ay go'aanada la soo saaraa laakiin go'aanku wuxuu noqon karayaa aan anigu aaminsanahay dooda Kenya iyo dooda Soomaaliya in maxkamaddu ay u go'aamin doonto marka la eegayo factska meesha yaala ama maxkamadda yaala xagga dambe ugu tagi doonaa waxa la isku hayo iyo qodobada sharci iyo cadeymaha ay Soomaaliya ku dacwoonayso waxaan aaminsanahay go'aanku xilligu doonaba intuu kasta waqti badan qaato in haddana go'aanku noqon doono dhinaca dawladda Soomaaliya. fulinta go'aamada maxkamaddani gaadho sidee ayay u dhacaan iyagu horta maxkamadani fulin ma laha go'aanadeedu oo booliis ama hay'adda daba socda inay fulaan go'aanada maxkamadda cadaaladdu ma jiraan scholarska international lawna waa markay ku doodayaan weakness ku leeyahay qaanunka caalamiga waxa kamid ah inaanu lahayn cid fulisa tusaale booliis fuliya ama xukuumad fulisa
laakiin markaynu eegayno curfiga caalamiga security council ama golaha ammaanka qaramada midoobay ayay tahay inuu ku dabagalo dalalka inay fuliyaan go'aanada ka soo baxa maxkamadda dhinacna moral bay ka tahay waajib bay ku tahay dalalka dacwaddu ka dhaxayso inay aqbalaan ay qaataan go'aan ka soo baxa maxkamadda balse haddii dhici weyda dunidu had jeer gaar ahaan golaha ammaanku waxay saaraan cunaqabateyn diplomatic pressures iyo sanctions bay saaraan dhinaca qaadan waaya maaragtay xukun ka soo baxa maxkamadda cadliga adduunka waana la ceebeeyaa sidii South China si kiiskii ka dhacay Philippines iyo China ma jiraan meel racfaan looga qaadan karo go'aanka maxkamaddan ay gaadho sidoo qabo qodobka 6aad ee xeerka ay ku aasaasantahay maxkamadda cadliga adduunku ma laha abiil go'aanadeed waa kama dambeys oo final waxaan xusuusin mudan in dadku maanka ku hayaan maxkamadda marka dacwad laga furanayo horta waxa tagi karo qurax dalalka xubnaha ka qaramada midoobay nasiib wanaag labada dal Soomaaliya Kenya waxay xubno ka yihiin qaramada midoobay sidoo kale waxay qayb ka yihiin ay saxiixeen axdiga caalamiga badaha ee loo yaqaan UNCLOS ee 22 soo baxay marka maxkamaddan go'aanada ka soo baxa waa kama dambeys intaan la tagin koorna maxkamaddu waxay ka saxeexdaa dhinacyada imanaya maxkamaddu inay bixiyaan ogolaanshaha maxkamadda dacwadooda ku qaadi karto kalsooni siin ay bixiyaan ama consent wax la yiraahdo ma jiraan marka rafaan dambe oo laga qaataa laakiin meelaha qaar waxa jira sidoo qabo xeerka laftigiisu waxyaabo la yiraahdo revision ama dib u eegis oo ay maxkamaddu sameeyso waxaana ku sameeysaa sababo xadidan ay ka mid tahay dhinaca dacwadda ku jiro kala markii hore inaanu haysan cadeymo ka soo daahay ama cadeymo aanu hore haysan kala dib maxkamadda u geeyo iyada laftigeeda waxay ku sameeysaa judicial review dib u eegis garsoor ku sameeysaa alaabana ma dhacdo anigu intan ka akhriyo ama xogaalka uga maxkamadda laakiin final ma laha go'aanadeed waa final way mubaarak bal dadkan aqoon badan u lahayn maxkamaddan bal u sharax insha maxkamaddan ICJ maaragtay waa maxkamad ka tirsan waxa qaramada midoobay 6 organ bay ka kooban tahay United Nations ama qaramada midoobay 6 waaxood qaramada midoobay ka kooban tahay bay waax ka tahay laba shaqo u qaabilsan tahay maxkamaddan qaramada midoobay mid waa advisory opinion inay siiso talooyin sharci golaha ammaanka golaha loo dhan yahay xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo wakaaladaha xubnaha ka qaramada midoobay sida FAO iyo WFP iyo UNICEF iyo UNHCR shaqada labaad ee UN waxa weeye inay ka garnaqdo muranka u dhaxeeya dawladaha xubnaha ka qaramada midoobay muranadaas oo la xiriira diplomatic immunity-ga sida kiisaska Iran iyo Mareykanka ka dhacayo kale iyo kiisaska la xiriira maritime boundary delimitation-ka ama muranka xuduud badeedka sida kan Indian Ocean-ka Soomaaliya Kenya iyo dalal badan oo kale erooyinkaas ka garnaqda maxkamaddani waxay kaga duwan tahay waxa jirta maxkamad barbar socota oo waana waaxda kaliya ee qaramada midoobay ka tirsan ku oolin Mareykanka ku oolin oo wax ku taala The Hague bay ku taala Netherland waxa jirta marka maxkamad barbar socota oo la yiraahdo ICC maxkamadda dambiyada dagaalka ama International Criminal Court oo alaaba dadku isku qaldaan maxkamadaas waxa lagu aasaasay axdiga gaarka ah ee la yiraahdo Rome Statute 1998 ka soo baxay ilaa 2000 maxkamadaas waxa loo aasaasay in ka garnaqdo xubnaha ama dawladaha gala dambiyada dagaalka dambiyada lidka ku bini'aadantinimada iyo xasuuqa ayaa maxkamadda loo aasaasay xubnaha jabhadaha iyo dawladaha dambiyada dagaalka ay maxkamadaasi waxay ka qarnaqdaa qura dambiyadaas ka qarnaqdaa dalalka xubnaha ka abaanay maaragtay ay qaabtaa oo xeeraliyo gudbana dacwadaas soo ooga dacwaduna laba qaab ku soo galaan baaris xeeraliyaha ka timid iyo security council oo soo gudbiya inay dacwada baaraan marka farqigaas u dhaxay labada maxkamadood haddii aynu soo noqono khilaafkan muxuu yahay barta muranka ama waxa uu salka ku hayo muranka badda su'aal wanaagsan aad jeer waxaan maqlaa dadkeena oo aaminsan in la isku haysto badda Soomaaliya iyo Kenya wax la isku haysto maaha baddiyo dhan badda waxa ka kooban tahay bay ka kooban tahay ama zones waxa la maritime zones oo 6 ah waxa ugu horeeya internal water oo ah biyaha dalku gudihiisa ku yaala ka mid yihiin kacamada ballayada harooyinka iyo wabiyada territorial water wax la yiraahdo oo biyo xadeedka wadanka oo 12 kaymayl ka kooban oo ay tahay meeluhu wadanku xaq u leeyahay ama xuduudaha wadanka xuduud biyeedka wadanka kamid ah waxa jirta qayb la yiraahdo contiguous zone ama aaga xiga oo ka kooban 24 kalmay aagaas waa aaga kastamada iyo maanta dekada laga sameeyo cashuuraha iyo sanitation-ka iyo immigration-ka iyo arrimaha laga qabto waxa jira aaga saxaad oo la yiraahdo EEZ ama exclusive economic zone aaga dhaqaalaha ee xorta aagaas wuxuu ka kooban yahay marka laga soo bilaabo from the breath xeebta laga soo bilaabo la boqolan inta kalmeel buu ka kooban yahay dal kastaana wuxuu xaq u leeyahay inuu maaragtay aw sidee aan lahayn
aan lahayn hor istaag oo u isticmaalo waxyaabaha laga qabsadana waxaa kamid ah scientific research waxaan yiraahdaan oo kale in daraasaad laga sameeyo cilmiya in kalluumaysi wadanka ka sameeyo inuu artificial island ama jasiirada macmala ka sameeyo inuu dul dooli karo inuu badda mari karo inuu passage wax la yiraahdo ama socdaal nabdoon oo ku dhex mari karo dalalkuna way isticmaali karaan kuwa land locked iyo maaragtay kuwa mainland ka labaduba waxaa jira markaa qaybta la yiraahdo continental shelf oo ah qalfoofka badda ama xeebleyda oo seabarka ah ama badda gunteeda hoose oo ka kooban 200 oo nautical mile ilaa 350 nautical mile dalalku way kordhisan karaan waxaana ugu weyn laga qabto qaybta ugu muhiimsan ee had iyo jeer doodaha wadamaduna waa qaybta ugu kulul ee maaragtay ay dawladuhu isku qabsadaan waana halka hadda uu muranku taagan yahay u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya iyo qaybta ugu dambaysa haysiga ama area beyond national jurisdiction meel aanay cid lahayn waa biyaha caalamiga ah ee dadku ama dawladuhu sheegan karin in dawladda ka xigto ma dawladaha kale haddii markaa soo noqono su'aasha ah muxuu ku taagan yahay barta muranka ee u dhaxeeya Soomaaliya Kenya badda isku haystaan continental shelf ama xeebleyda oo ka kooban 200 nautical mile oo ah qaybta ugu badan gaasta iyo oilka laga helo saliidda iyo gaasta ayran laga helo halka ugu maaragtay dhaqaalaha badan badaha dalalku leeyihiin weeye maadaama aagan muran ka taagan yahay ay tahay aaga gaasta iyo saliidda labadaba laga baarayo oo ilaa amsi waliba wax badan ay ceegaagaan oo blocks badan ay ku yaalaan ilaa iyo ay dawladuhu ka heshiiyaan oo ay heshiis dhameystiran geeyaan ama ay maxkamaddu kala saarto sharciga caalamiga bad wuxuu qabaa in la sameyn karin offshore ama exploration sahamin ama soo saaris shidaal marka dawladda Kenya ilaa inta go'aanka maxkamaddu dhacayo oo maartay xal loo helayo khilaafka laga ma soo saari karo go'aan ma taaban karto Soomaaliyana sidoo kale area dooda ka taagantana waxa lagu qiyaasay inay ku yaalaan ilaa 450 block oo labada dhinacba ay wadaagaan oo maaragtay shidaalada la aaminsan yahay in gaasta iyo saliiddu ay ku jirto hadaba maxay tahay qaabka dood ay ugu doodayso Soomaaliya in biyaha loo xadeeyo maxay tahay qaabka Kenya ugu doodayso in biyaha loo xadeeyo sidoo qodobka 15aad ee UNCLOS convention ama dastuurka baduhu waxa jira hal qaab oo biyaha loo xadeeyo oo la isku raacsan yahay oo la yiraahdo median ama xariiqo toosan marka dastuurka baduhu sheegaya labada dal hadii biyaha iska soo horjeedaan opposite isku yihiin ama adjacent ay yihiin oo ay isxigaan waxa lagu xalilayaa median line ama xariiqo toosan oo ah dooda Soomaaliya ee qabto dastuurka baduhuna uu qabo Kenya waxay ku doodaysaa in qaab ka duwan loo xalilo oo la yiraahdo equidistance line ama principle of equidistance qaabka adoo goorma la sameyn karaa dastuurka baduhu isagoo ka jawaabay wuxuu leeyahay laba shardi marka la helo ayaa la sameyn karaa shardiga koowaad oo ah in special circumstances ama xaalado duruufo gaar ah ay jiraan oo ay Kenya sheeganayso duruufo gaar ah sida dooda Kenya ku qoran ma jiraan ay ku tilmaamayso in qaab ka duwan loo kala xadeeyo iyo dooda labaad oo ah hadii uu jiro historical claim wax la yiraahdo sheegasho taariikheed hadii Kenya sheegasho taariikheed jirtay la historically baan anagu meesha u lahayn ama historically qaabkan loogu xadeeyo taasina waxaan qabaa in aanay jirin marka la eego dawladda Kenya marka waxaan aaminsanahay in mar walba maaragtay dawladda Soomaaliya ku taagan tahay xaq waxa jira dalal badan oo Afrika oo maaragtay muran sidan oo kale ka dhaxeeyo ay kamid yihiin Ghana iyo Cote d'Ivoire oo ay kamid yihiin Nigeria, Cameroon, Angola iyo DRC iyo Tanzania iyo Malawi aad baad mahadsantiin